waxaa maanta ka qabsoomay magaalada Gaarisa shir ay soo qaban qaabiyeen waxgaradka odayaasha culimada iyo dhalinyarada qaybaheeda kala duwan ee beesha Samawadal ee ku sugan magaalada Gaarisa. Ujeedka shirka ayaa ahaa in ay ku qaadacaan qabashada kursiga David Governor ee dhawaan ka qabsoomi doona magaalada Gaarisa, kuwaas oo ay u taagan yihiin musharaxiin dhowr ah. Hase ahaatee waxa ay si cad u qaadaceen beesha Samawadal ee shirkani soo abaabushay musharax Cabdi Dhaqane oo horay u soo qabtay kursigaasi. waa sida ay hadalka u dhigeen. waxgaradka ku sugnaa howlka shirka ayaa uga digay siyaasiyiinta in aysan ku dhex milmin kana fiirsadaan qofka ay soo xulan doonaan, iyaga oo waliba si cadeeyay in ay waxba kama jiraan ku tilmaameen guddigii 5 xubnood ahaa ee soo xushay siyaasi Cabdi Dhaqane oo horay u soo qabtay David Governor. odayaasha dhaqanka culimada iyo dhalinyarada ayaa bayaankii ay soo saareen warfidyeenada la wadaagay, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sida tan. bismillaahir rahmaanir rahiim. magacaygu waa Axmed Cabdi. waxaan salaamayaa dhammaan beesha Samawadal meel kastoo joogto. waxaan ku salaamayaa 14 boqolka Quraanka. saako ay taariikhdu tahay 9kii May. waxaan isugu imaanay shir ballaadhan oo Samawadal ninna kaga maqnayn. arrimaha lagaga hadlayana waxaa weeye dhowr qodob weeyaan. qodobka ugu horeeya guddigii kala dirka Samawadal ee Melindi fariistay ee Cabdi Dhaqane gatay nama matalaan. qodobka labaad, Cabdi Dhaqane sinaba kuma rabno, kumana qaadanayno. ilaa haddana cid shakhsi oo Samawadal isku raaceen oo meel geysteen ma jirto. marka ninkii cid bannaanka iska socota qaata asagay u taalla. qodobka saddexaad, waxaan rabnaa beesha Samawadal intayna bishan shanaad dhammaanin inaan shir isugu imaanno, guddi samaysano. guddigaas uu David Governor iyo cid kastoo la soo qaadanayo diyaariyo insha Allah tacaala. waxaan idin sheegi Samawadal sidoo ninkii igu horeeyay sheegay dad gaar ah ma matalaan iyo cid goosina. waxaanu isku raacsanahay inaan nimankaas ninkay geeyeen na matalin. wuxuu shalay ahaa wax ka fiican ma noqonayo. ninkii noo geeyana waan ka digaynaa, aad baan uga digaynaa. hadduu digniinta diidana asaga u taala daniis asaga garan. bismillaahir rahmaanir rahiim. alxamdulillaahi rabbil caalamiin, thumma salaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam. magacaygu waa Cabdiraxmaan. waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan beesha Samawadal meel kastay joogto. shirkan waxaan u qabanay beesha Samawadal meesha way fadhidaa inaan uga hadalno danaha anaga Samawadal. danaha anagu waxay ku jiraan inaan cadaysano ayaan meeshan u imaanay oo shirku u imaanay. koow waxay yihiin danaha anaga waxaa jireen guddi soo qaateen nin la yiraahdo Cabdi Dhaqane, horaana David Governor ahaa 5 sano hore. waxaan sheegaynaa markaa guddigaas ninka ay noo soo qaadeen annagoo beeshii Samawadal ma ogolin mana qaadanayno. Governor nadiif ee loo wadana waxaan u sheegaynaa annaga haddaan Samawadal nahay ninka annaga inuusan anfacaynin, David Governorna noo noqonaynin, nana matalaynin. haddii nimaan la wadanin oo dadkii si wadanin haddaa adigu qaadanayso waa ma garanaysaa dee aragtidayda ay leedahay, waa wax adigu aad aragtay wey. laakiin annaga haddaan nahay beeshii Samawadal waxaan qabnaa Cabdi Dhaqane horna nooma soo anficin, haddana nama anfici doono. waxaan u sheegaynaa marka beesha walaalahan ee uu nadiif ka dhashay ninka inayna Samawadal qaadanna doonin oonan diyaar u ahayn. sidaasaan u sheegayaa. maanta waxaan halkan iskugu imaanay nagoo Samawadal halkan iskugu imaanay. sababtan iskugu imaanana waxay tahay in aan ka muujino dareenkeena aan ka qabno guddigii Samawadal ee muxuu ahaay Melindi lagu soo asaasay qayb ka mid ah ay ku gaartay go'aanka ay ku gaareen London ee ahaay in Cabdi Dhaqane loo qaatay David Governor. taas oo u aragna ninkaas nin muxuu ahaay shaqadiisii hore ee muxuu ahaay loo igmaday ka soo bixi waayay, aan muxuu ahaay xoolihii Samawadal uu marka hore ku aaminay sidii loo aaminay kaga soo bixi waayay. halkaa waan kaga soo horjeednaa. waxaan leenahay
oon cod dheer iyo cod gaabanba aan ku diraynaa oon leenahay ninkaas nama anfaco guddigaas samawadal ee kooxda ah gees la galay muxuu ahay laaluushyo iyo arrimo fara badanna ku bixiyey aan ogsoonnahay waxaan leenahay waan ka soo horjeednaa waxaan halkan baaq ooga diraynaa ninka loo wado oo muxuu ahay in deputy governor looga dhigo la rabo waxaan leenahay arrintaas haddaad ku dhaqaaqdo waxay ku noqonaysaa cashir iyo tusaale aan la hilmaamaynin Sharmaarke Mahdi Cabdi Kulmiye TV